irir Soomaali kama talinayso samaha Somaliland ceeb bay nagu tahay 230 sano oo ay maanta Somaliland ay jirtay inaan u noqono ciribteena taliya cambaashe oo nafta u huraya qarankan oo furinta jooga oo doonaya cadawga Somaliland dibadda inuu ka difaaco oo habeen maalinba heegan ugu jira kuwii shalay reerkooda xamar ka soo caayay in Hargeysa lagu soo dhaweeyo oo Booram lagu soo dhaweeyo oo ay gobolada kale loo socdaan ma taliya cambaasha qarankan dan u ah mise irir Soomaali dalkan inala leh oo dalkan dan u ay islaamaha socda Somaliland irir Soomaali dan u maaha ciidamada qaranka waxaan ku garab taaganahay cid kasta oo ka soo duusha wixii Somaliland ka baxsan oo duulaan Somaliland ku soo qaado inay gacan bir ku qabtaan afayeenka guud ee xisbiga mucaaradka ah ee wadani Maxamed Faarax Cabdi oo warbaahinta kula hadlay magaalada Hargeysa waxa uu ka hadlay xaaladda dalka Somaliland waqtigan uu marayo isagoona si gaar ah isku dul taagay wafdi ka socday magaalada Muqdisho oo maalmihii u dambeeyay si weyn lagu soo dhaweeyay magaalooyinka Hargeysa iyo Boorama arrintaasi ayuu xukuumadda si weyn ugu dhalay isagoona tilmaamay in qaranka Somaliland ay ceeb ku tahay in beelo loo qaybiyo dhinaca kale Maxamed Faarax Cabdi oo hadalkiisa si wato waxa uu sheegay in xisbi ahaan ay barbar taagan yihiin ciidanka qaranka Somaliland ay ka difaacaan dalka cid kasta oo dalka dibadiisa kaga soo duusha waxaan maanta doonayaa halka saddex qodob oo kooban aan runtii kaga hadlo qodobka koowaad waa baaq aan u dirayo dagaalka ka socda Sool xisbi ahaan waxaan qabnaa inuu dagaalka Sool ka socdo yahay nasiib darro weyn oo dhexdeena waa dagaal sokeeye oo aan u baahnayn in lagu xaliyo qori ee u baahan in lagu xaliyo wada hadal dulqaad iyo tanaasul waxaan xisbiyaan soo jeedinaynaa in la joojiyo dagaalkaasi bil Ramadaan mar ku jirnaa waa yaami khayrka lahaa dhiigga islaamka ee daadanaya runtii dambi weyn ayuu ku yahay mas'uuliyiinta qaranka iyo cidda hawsha abaabulisaba waan ka xunahay waxaan mar labaad iyo mar saddexaad ku baaqanaa in Ramadaan la xushmeeyo wax wada laanshaha la xushmeeyo wada dhalashada la xushmeeyo Somalilandnimada la xushmeeyo la isku tiraasulo qodobka labaad ee ka hadlayana waxa weeye Somaliland waxa halka ku soo gaadhay ee lagu aasaasay ee wax lagu wada yeeshay beelo kala duwan baa Somaliland dega waxay beelahaas ku heshiiyeen inay Somaliland wada aasaastaan bari iyo galbeed iyo candha dhaxaba qodobka ka dhaxeeya waxa weeye Somalilandnimo waxay Somaliland u baahan tahay in la isku hayo waxay Somaliland u baahan tahay in dadka la isku joojiyo uma baahna Somaliland in loo kala abtiriyo uma baahna in Somaliland la kala qoqobo uma baahna Somaliland in reer lagu kala sheego waxaan arkaynaa ayaamihii u dambeeyay oo dalka jooga koox isku sheegtay irir Soomaali kama talinayso samaha Somaliland ceeb bay nagu tahay 230 sano oo ay maanta Somaliland ay jirtay inaan u noqono ciribteena oo ay qarankeena Somaliland oo hor cararayo islaamo iyo niman Somaliland cadow ku ahaa shalay wax ka sheegayay oo dadka aan wax wada leenahay wax ka sheegayay inay maanta wax la yiraahdo irir Soomaali ku hor cararaan aad iyo aad baan uga xunnahay waxay ku muuqataa in daad qaad xun cusub Somaliland irir Soomaali dan uma aha daarood dalka ayuu nala leeyahay waa deegaan Somaliland Sool iyo Sanaag buu degaa Somaliland waxa uu dana dadka Sool iyo Sanaag dega ee ummadana aha islaamaha iyo odayaasha dirta sheeganaya ee irir Soomaali sheeganaya sidee kuula muuqataa taliya cambaashe oo nafta u huraya qarankan oo furinta jooga oo doonaya cadawga Somaliland dibadda inuu ka difaaco oo habeen maalinba heegan ugu jira kuwii shalay reerkooda xamar ka soo caayay in Hargeysa lagu soo dhaweeyo oo Booram lagu soo dhaweeyo oo ay gobolada kale loo socdaan ma taliya cambaasha qarankan dan u ah oo dalkayna la leh mise irir Soomaali dalkan inala leh oo dalkan dan u ay islaamaha socda waxaan qabnaa taliya cambaashe iyo beesha uu ka soo jeeda qarankan in lafdhabar u yihiin inay ku jiraan hay'adaha qaranka ugu sareeya xubinta saddexaad dalka inay yihiin fulinta ay ku jiraan garsoorka ay ku jiraan ciidanka ay ku jiraan shaqaalaha dawladda ay ku jiraan shacabka Somaliland ay ka mid yihiin miyay qabataa inaynu dhageysano YouTuber Somaliland shalay cadow u arkayay inuu cambaashe inooga dhigo iyo wasiirada maanta xukuumadda ka tirsan ee madaxweyne Muuse marka irir Soomaali la garaacayo hoos jooga in moralkooda lagu ciyaaro miyaynu dhageysanaa oo waxaan u qaadanaa
inay islaamaha ira Soomaali maanta matalaya weli ma inaan arag dhaqan la yiraahdo dumar baa matalaya dhaqan la yiraahdo dumar baa matalaya maanta ka hor ma inaan arag qarankiina ceeb bay ku tahay Soomaaliland lafjab bay ku tahay sumcaddii aan iibinayna lafjab bay ku tahay maanta Soomaaliland way saqiiriyeen ragga mas'uuliyiinta hor yaacaya ee qarankan digreetada ugu magacaaban ee baabuurtii dawladda iyagoo wata hor yaacaya barnaamijka qabiilaysan runtii waxa leenahay qaranka madaxweynaha waxaan u soo jeedinaynaa qarankan irir Soomaaliland leh Soomaaliland baa leh oo daarood iyo dir iyo cid walba isku jirta lama kala qoqobi karo nusqaan bay madaxweyne kugu tahay adigoo qarankan fadhiyo hogaaminaya in maanta dadkaagii loo kala abtiriyo waxaan leenahay halka hal la joojiyo Soomaaliland waxa wada leh oo wada lahaa dadkii xuduudaheeda 1960kii dadkii wada deganaa sida uu qeexayo dastuurka qodobkiisa afraad maanta haddii la yiraahdo xuduud cusub baa la sameeyayo qabiilaysan waxa filayeen inay naga iibsamaynin waxa leeyahay lagu daayo Soomaaliland la wada lahaa ee ummadoo dhan ka dhaxaysay ee inta degta xuduudaha Soomaaliland qodobkan ku daray kale waxa weey dadka ku soo duulay Soomaaliland ee dibadda kaga soo duulay runtii waxaan u aragnaa inay cadow dibadda yihiin ciidamada qaranka waxaan ku garab taaganahay cid kasta oo ka soo duusha wixii Soomaaliland ka baxsan oo duulaan Soomaaliland ku soo qaado inay gacan bir ku qabtaan xisbi ahaanna waanu garab taaganahay waana waajib saaran ciidamada qaranka inay sugaan xuduudda Soomaaliland guud ahaan shacabka Soomaaliland xisbiyada qaranka cid aan garab taagnayn ciidankaasi maanta oo aan ku garab taagnay cadowga dibadda ma jirto waxna waa cadow dibadda oo waa ka wixii xuduudaha ka talawsan waxna waa dagaal sokeeyo waa ka dhexdeena gudaheena waa in labada loo kala garto weeyaan marka ciidanka waxaan ku garab taaganahay cid kastoo Soomaaliland duulaan dibadda ku soo qaada aad iyo aad baad maasantiin mudana afhayeen in xisbiga wadani uu aaminsan yahay in xukuumaddu ay isku laynayaan laasacaanood dadka dibadda ka yimaada cid kastoo dibadda ka timaado waniga ku sheegayo waa cadow dibadeed baan u aqoonsanahay ma ogolin raalina kama nihin laakiin halku hawsh ka bilaabantay iyo dagaalku hal ka dhacay laasacaanood gudaheeda laasacaanoodna Soomaaliland kama baxsana cidda dibadda ka timid waa in laga difaaca laasacaanood inta joogto wixii ka dhacayaana waa qalalaasa gudaha Soomaaliland dhigay sidoo madaxweynuhu sheegay markii hore muuqaal lagu duubayay bal arintaadu soo waragtaan runtii horta qof waxba soo la qabtay wax laga duubaa horta waa fool xumaba mana fiicna damage dhaawacuna runtii way leedahay dadkana naxliyo xumaan bay si kala dhigtaa waxa leenahay maxaabiistii la qabtay si fiican loo dhaqmo yaan la bahdilano aan fiiriyo yaa laga duubanlano raali runtii sida ay dhigayso shuruucda caalamka maxaabiista waa la ilaaliyaa sida ugu wanaagsan waa loo dhaqmaa mana filayna in ciidankeena qaranku maxaabiista ay qabtaan si xun loo dhaqmi doonaan runtii aad iyo aad baad maasanta Ibrahim Jokar CBA TV Hargeysa